anigoo ku hadlaya magaca GYL dhalinyarada beesha Gabooye ee qorba joogta ah waxaan halkan baaq murugo ah ugu dirayaa qoyska ay ku dhacday dhibaatada xoog weyn ee maanta gabadhoodii shaarica magaalada Boorama wajiga lagu googooyay waana dareemi kartaa qof dumar wajigeedu waa baasaboor qof dumar wajigeedu waa kaliyaata ay bulshada ku dhex galayso war maanta yaa ogol in walaashi wajiga laga dilo maanta yaa ogol in qof ehelkiisa wajiga laga dilo war dumarku waa birimageedo waxa weeye dhibaato hadii loo geysto waligeed dagaalka ka bilaabma dumar ma qaboobo war waxaan leeyahay hadaba gabadha maxaa lagu diray bal hadaba hadan waxay ka taabto gabadhan kiiskan loo raacay ee maanta wajigeeda lagu bahdilay magaalada Boorame dhowr sano ka hor gabadhan wiil baa jeclaa wiilkaasna wiilkeeda bursiyo ahaa wiilkii way jeclaayeen gabadha xaafadooda diyaar bay lahaayeen inay wiilka siiyaan laakiin gabadha wiilka xaafadooda waxay ku yiraahdeen waraadiyo gada bursiya miyaad guursanaysaa naag midgaan ah laguma siin naag midgaan ah tii waxay sababtay inuu wiilkii iskubo maadaama uu ogaaday in macnihii laga hor istaagay qofkii uu jeclaaday loogana hor istaagay wax aan sharcigu ogolayn oo waa midgaan ah wiilkii markuu iskubay kadib waxa weer lagu soo qaaday gabadha xaafadoodii oo habeeraatay kiiskan wax lagu kulahayn oo ma jacaylka uu jeclaaday gabadha ayaa dhibaato lagu geystay gabadha xaafadoodii gabadha walaalkeed iyo ilmaadareed baa lagu tuuray xabsiga magaalada Boorama oo ilaa imikana ku xirayeen dhowr sano ku xirayeen cid ka hadashay ma jirto war aawi cadaaladda Soomaaliland taalameeday war Soomaaliland habeeraatay wax cadaalad oo yaala ma jiraan Soomaaliland waa qabyaalad xun oo qurun ayaa ka socota war waxaan leeyahay maanta bal ii sheega bal maanta hadii wiilka gada buursi ee istilay hadii maanta isku dil lahaa gabadh isaaqa sheekada ma dhici lahayd waligeed ma dhacdeen halkaas lagu dumin lahaa laakiin gabadhu waa midgaan waa Gabooye midgaan bidi ku taqaanaan gabadh Gabooye weeyaan maadaama ay awood lahayn cid u hadashaanay jirin in lagu tunto maadareedeed iyo walaalkeed oo xabsiga lagu tuuro yadiina maanta wajiga laga bedelo shaarica magaalada Boorama taasi waa tii ugu xumayd ee maanta ka dhacday geeyiga Soomaaliyeed gaar ahaan geeyiga Somaliland hadaba waxaan leeyahay dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed arinkaas bal ka waran haduu walaasha ku dhici lahaa